الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى marka uu ciqaabayo cid kamida addoomihiisa ama uu cadaabayo ilaahay subxaanahu wa tacaala halaagooda iyo cadaabkooda waxa uu u yeelay asbaabta ilaahay jala wacalaa waa uu uga digay ummaddiisa iyo addoomihiisa waxaanu ilaahay jala wacalaa ku waaniyey inay ka fogaadaan oo aanay u dhowaanin hadday u dhowaadaanna inay ku dhici doonto ummadihii hore wixii ku dhacay asbaabta halaagga waxaa ka mid ah macaasida iyo dunuubtu inay ku faafto ummadda dhexdeeda ama bulsho dhexdeeda inay ku faafto ilaahayna subxaanahu wa tacaala soo diridda uu soo diraayo cadaabkiisa iyo ciqaabkiisu maaha mid ku yimaada lown iyo midab qura waa mid ku yimaada midabo kala duwan waana mid u yimaada qaabab kala duwan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay oo u qadaray ilaahay ummadaha qaar wuxuu ku halaagay sayxa iyo dhawaaq qaar ilaahay wuxuu ku halaagay fatahaado iyo daadad qaar ilaahay wuxuu ku halligay subxaanahu wa tacaala inuu cirka iyo dhulkaba biyo kaga keeno sidii qowmu nuux qaar allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku halaagay saaciq ah iyo hanqadhyo qaar ilaahay dhulka ayuu la gooyey subxaanahu wa tacaala tanwiica ilaahay cadaabka iyo ciqaabkiisa uu noociyeeyaa xikmad weyn baa ku jirta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka leeyahay allah waa ka qur-aanka inoogu tilmaamay qaababka kala duwan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u halaago ummad ama aqwaam ilaahi subxaanahu wa tacaala uu halaago allah wuxuu qur-aanka ku sheegay qaarkood inuu ku halaagay saaciqa faakhadathm saaciqatu wahum yanduruun iyagoo arkaya oo eegaya ayay saaciqada iyo ciqaabka ama hanqarhku uu ku dhacay qaar ilaahay badda ayuu ku halaagay sidii fircawn wa qowmuh faagraqnaahum fi lyam badda ayaanu ku qarqina buu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu ku halligay qowma fircawn badda iyo biyaha subxaanahu wa tacaala allah jala wacalaa wuxuu inoo tilmaamay qaarkood inuu ku halaagay duufaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dabaylo iyo duufaanna uu ku halaagay ilaahay فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله سبحانه وتعالى waxau yidhi waxaa qabtay duufaan iyagoo markaa qaar dulmi sameeyayaal ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gafay shareecadiisa iyo diintiisa allah subxaanahu wa tacaala qaarkood wuxuu inoo sheegay inuu dabaylo ku halaagay oo sida reer caad oo kale wa amaa caadun fauhlikuu biriixin sarsarin caatiya ilaahay inuu qaar dhulka la jaray fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard noocyada cadaabku walaalayaal ee ilaahay uu inoo sheegay subxaanahu wa tacaala waa mid uu inoogu sheegay ilaahay si aynu wax ugu qaadanno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ugu hoggaansanno hadday ummaddu la timaado waxyaalaha keenaya ciqaabka iyo cadaabka rabbi waa mid sunnadiisa kownigii ay dhigayso inuu cadaabo o u ciqaabo ilaahay baana taa ballan qaaday inaanu cidna ku cadaabi doonin gardarro wamaa kunnaa muhliki اlquraa ilaa wa ahluhaa daalimuun ma nihin qaar cadaabaya ama halaagaya tuulooyin iyo markaa deegaano ilaa inay ehelkeedu sameeyaan dulm iyo waxa weeya markaa xadgudub mooye waidaa aradnaa an nuhlika qarya amarnaa mutra fiiha
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إلهي وحوري جل وعلا هدانو دونه إنانو هلاقنا تولو كودا مركا قوقا بدن له طرفك يا مالك وصاحبك أبانو فرناه إنay markaa qooqaan ay xad gudbaan dabeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxaa ku dhabooba cadaabka alleh dabeedna ilaahay waa uu burburiyaa burburin dhaba subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed walaalayaal macaasidu waxay ka mid tahay min asbaabi halaaki lumam asbaabta ummad lagu halaago ayay ka mid tahay hadday ummadii barriisato macsiyo iyo xumaan ama ay xumaanta qabantinto oo xumaanta ay noqoto mid la qabsata allah waa haligaya nabigu wuxuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulku yidhi qoom faaxishada zina la yidhaahdo lama yimaadaan lama jahraan oo kor uma qaadaan oo bannaanka ulama soo baxaan hadday ula soo baxaan ay dhacdo ilaahay wuxuu ku sallidaa xanuunno aanay aqoon aabbayaashood iyo awowyadoodii hore ee tegey waynu ognahay maanta waxaa xanuun dunida ka jira maalin walba weji cusub maalin walba magac cusub maalin walba xanuun cusub aidhis baynu maqli jirnay faalig baynu maqli jirnay macaan iyo dhiikar kansal maantana corona taagan dunida qaaradaha dunida oo dhan kaga cadaadiyey oo mid qura ku awood sheegan jiray iyo kuwaan lahaynba mid isla maaragtay isla sarreeyey iyo mid isla hooseeyeyba gebigooda camimay oo simay awooddoodana tusay waa ciqaab min allah subxaanahu wa tacaala sababna waxa waa macaasida iyo dunuubta wey ummadu waxaa laga yaabaa inay asbaabta maadiga ah fahmaan ama muslimiin badan oo ducafaau alcuquuli waannufuus ah in gaaladu u yeedhiso sababta keentay xanuunkan shimbiraa laga qaaday daanyeer iyo doofaar la cunay baa laga qaaday wax allaale wixii alla uu xarimay ku tallaabsadkeedu ama doofaar la qashay ha noqdo ama daanyeer la cunay ha noqdo ama ay la qashay ha noqdo wixii alla uu xarimay waa khubth iyo qurun ku tallaabsashadeeduna waxay keentaa cadho alla subxaana wa tacaala wayuxillu lahum ayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'is nabiga ilaahay wuxuu inoogu soo diray inuu wanaagana inoo xalaaleeyo waxa xunna inaga xarimo subxaana wa tacaala ayuu ilahay inoogu soo diray nabigeena maxameda salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh haddii markaa wixii khubsiga ha la xalaashado cadho alle ayay keenaysaa hase yeeshee xanuunka maanta taagan ee karoone sabab keentay way sheegi kari weyday gaalo isu tagtay kuwoodii waaweynaa iyo kuwoodii yaryaraayo sheegi kari waayo sababtii keentay waxan iyo wixii sababay iyo waxa laga qaadayo ama markaa waxa weeye keenaya ma garanayaan wejigiisii saddexaad baa socda kiisii labaad baa socda waxaasun bay gaala ku dabaqday muslimiintuna tabac weeye oo muslimiintii istiqlaal iyo madax bannaani badan maanta ma laha wixii loo sheegaayo bay qaadanayaan laakiin asbaab maadiya oo keentay way jiri kartaa hase yeeshee asbaabta sharcigaana waa inaan la iloobin oo macaasida iyo dunuubtu inay sababaan halaagga ummado inaynu ogaano ilaahay inuu ummado kaga kaxeeyo arlada korkeedaba dhammaan inuu ku suuliyo macaasida inaynu ogaano aynu garanno inuu hadduu doono ku yaryareeyo oo in badan uu ku kaxeeyo in badanna uu baaqi yeelo ilahay waa facaal limaa yuriid subxaana wa tacaala wuxuu nabigeenu yihi sala allahu alayh wasalam rasuulku habeen buu baraarugay isagoo argagaxsan markaasaa nebigu wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah waylun lilcarab min shari qad iqtarab futixa alyowm min radmi yajuuja wamajuuja mila haadih wuxuu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam hoog baa carab u sugan shar u soo dhowaaday daraaddeed maanta waxa la furay teedkii yajuuj iyo majuuj intaa in leeg baa nebigu yidhi suulka iyo farta nebigu intuu isku qabtay goobadaa in leeg baa la furay hoog baa u soo dhow iyo halaag baa nebigu yihi calayh salaatu wasalaam zaynab baa rasuulka la joogtay waxay tidhi rasuulkii allow anuhlik wa fiina saalixuun miyaana la halaagayaa iyadoo dad wanaagsani ay nagu dhex nool yihiin mana la haligayaa nebigu wuxuu yihi nacam idaa kahura alkhabath haa waa laydin halaagayaa baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam xumuhu hadduu farabato buu rasuulku yihi alayh salaatu wasalaam
xataa iyagoo saalixiini nool dad wanaagsani ay nool yihiin haddii xumuhu bato waa laydin halligayaa baa rasuulku yidhi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam cidduu sidaa ku leeyahay nebigu calayh salaatu wasalaam waa saxaabadiisii ayaa rasuulku sidaa uu ku leeyahay sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam walaalayaal fisqiga iyo xumuhu hadduu bato zinada iyo macaasida haddii la bariisado noocyadeeda kala duwan zinada ribada luudnimada iyo markaa xumaha ama faaxishada liwaadka la yidhaahdo yacnaa waxa weeye markaa khiyaanada dhaca laaluushka iyo kutumashada dadka masaakiinta ee markaa ducafada ahi dulmiga noocaasi markuu bato ee arrada uu usoo baxo ilaahay jala wacalaa wuxuu kaga jawaabaa ciqaab weeye ilahayna siduu doon u argoosta waa facaal limaa yuriid sanastadrijuhum min xayثu laa yaclamuun waumlii lahum ina kaydii matiin allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi waxaan ka midhaynayaa meel aanay garanayn waanan u seeto dheerayn doonaa qaarkood dhagartayda iyo xadhig maleegayguna waa mid adag buu rabbi yidhi subxaanaه wa tacaala wuxuu nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam ina allaha layumlii liلظaalim xatى إida أkhadahu lam yuflit ثuma qarأa qowlahu tabaaraka wa tacaala wakadalika أkhdu rabika إida أkhada اlqurى wahiya ظaalima ina أkhdahu aliim shadiid wuxuu nabigu yihi calayh الsalaatu wasalaam ilaahay uu u seeto dheereeyaa daalimka markase ilaahay uu qabto kama fakado daalimku ilaahay waa sidaa qabashada rabbiga aayaddaasaa nebigu akhriyey rabbigaa qabashadiisu waa sida uu u qabtay oo kale reer caad qowmu luut qowmu huud siduu u qabtay oo kale ayuu ilaahay u qabtaa daalimka ilaahay qabashadiisu waa mid kulul oo daran buu rabbi yihi subxaanaه wa tacaala aqulu ma tasmacuuna waastaqfir اllah alxamdu lilahi calى ixsaanih wاshukru lahu calى tawfiiqihi waimtinaanih waashhadu an laa ilaha ila allahu tacdiima lishanih وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار عباد الله ولا ليال حمها عدوبته إلهي سبحانه وتعالى عقاب كيسو سودة قاصدين تلمامني ما أنت ودن كان إنو كل قنهاي معاصي بدن أو إنو الدنيا كم أغلي تشرني أما قار بدن أو إنو قمدنا أنا مقلبا dadka waaweyn oo dhami ay la yaabi doonaan waddankeena maalinba nooc cusub ay imanaya waxay ii sheegeen dad dhalinyaroo ka shaqeeya maxkamaduhu kiisaska ugu badan ee la keenaa inay ka mid yihiin dad diinta ka baxay oo ridoobay oo islaamnimadiiba iskaga tegay oo aan baqanayn oo kooxa ah oo rag iyo dumarba leh oo faamiliya ah oo weliba gaalnimada ducaad ku ah ku baaqaya oo la islaamka waan ka baxay bixorriyatii baan kaga baxay waynu maqli jirnay uun dad baa diintoodii ka tegay ama gagaaloobay innagoo arkayna oo maqlayna inoogu timid waddankeena waxaa ka mid ah dembiyada ugu badan ee la keeno hadda dhowaanahan dambe oo dhan liwaadka ama ninka nin u tegaya ficilkii qowmu luut ayaa hargeysa ka jira oo inaga maqlinin maxkamadaha qaarda inay xukumeen qaarkood oo 10 sano ay ku xukumeen sidaa daraaddeed waa macsiyo iyo xumaan inagu cusub amaba aynu la yaabi doonno waqtiyada hore laakiin waxaa iman doontaa haddaan laga hortegin oo aan la isaga digin oo aan la isu caddayn oo aan dadka loogu baaqin wanaagga sharkana looga digin waxaa iman doonta maalin lala qabsado oo aan wax weyn loo arag ayaa iman doonta kuwii marka gabadh la kufsado hay-adihiina wareerin jiray ee buuqoodiyo qayladooda aan laga fadhiyi jirin
maylan islaamnimo iyo inay hablaheenu wanaagsanaadaan uma qaylinayaan maxay uga qaylin waayeen qowmuluudnimada maxaa kuwan liwaadka lagu soo qabtay maxkamadaha la hor keenayo ee babliga loo sheegaya ay uga hadli waayeen limaada ninku miyaanu xaq lahayn isagu dumarkuunbaa xuquuq leh waa fasaad bulshadeenna in badan oo ka midina ay u rixinayso amaba ay u dhagan nugushahayba waxay nagu soo kordhaya dadka dibadaha ka imanaya faraha badan le qaar badan oo ka mid ihi afkaar bay xambaarsan yihiin aan la mahadin doonin cidhibteeda iyo caaqibadeeda aan la mahadin doonin ayay xambaarsan yihiin haddaan laga digin oo dadka aan dhawaaq dheer loogu sheegin oo dowlad iyo shicibba aan laga kicin fadhigana guryaheenna ayuu daadku inoogu soo geli doonaa guryaheenna waxay sheegtay inan ka mida shaqo qaranta hablihii shaqo qaran ee waxa weeye ka soo baxay jaamacadaha oo maxkamadaha dadka ka shaqeeyahay waxay ii sheegtay inay markaa la keeno maxkamadaha la keeno maxkamadaheena la keeno gaar ahaan Hargeysa rag le afar nin oo isqaba nin le afartan ba anaa qaba sidii naagii afartan ba anaa qaba xaasas qowmuluud ah wax ka hadlayay wax ka qeyliyay midna ma jiro waxa laga yaabaa garsooraha la hor keenaa inuu yidhaahdo xukuna qodob aan ku xukumo ma hayo war qodobkiisu waa dil uqtulu alfaacila walmafcuul ka lagu sameeyey iyo ka sameeyey labadaba waa la dilaya culamada islaamku waxay dhahaan weliba dilka ugu fool xun dil ayaa la dilaya fuqahada qaar waxay fatwoodaan culamada qaarkood fuqahadu buurta buur ugu dheer inta la saaro in laga soo tuurayo sida tiyuubka si ay hawada ugu soo qarxaan oo isagoo xataa hilibkiisa dhulka laga ururinayo xataa dil caadi oo raaxale aan la dilayn qowmu luut maxaa lagu haligay sida loo halaagay cid loo halaagay ma jirto dhulkaa lala jaray siday u dhammaayeen samaa dunyaha lagu dhaweeyey markaasaa la soo fororiyey fajacalnaa caaliyaha saafilaha baa ilahi subxaana wa tacaala waxaanu ka yeelnay qaybteedii sane hoostaanu marinay xaggeedii hoosena hoos dusha ayaanu soo marinay malaku jibriil calayhi salaam ayaa garab garbihiisa ka mida geliyey dhulka dabeedna intay ku fadhiyeenba waa la fujiyey ilaa samaa dunyaha malaa'igtii joogtay dhawaaqa diigga iyo codka diigga ay maqlayeen waa la soo fororiyey dabeedna dhulka ayaa ka daba yimid xabaal kale looma doonin waa qowmu luuta maxaa yeelay waxay sameeyeen faaxisha sida nebi luud uu ku wacdiyey maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin cid alla cid idinka horeysay waxaanay jirin baad la timaadeen buuri inakum lata'tuuna rijaala shahwa min duuni nisa ma rag baa wax weydiinaysaan dumar sakadii ya markay faaxishadu halkaa gaadho zino waa laga yaabaa ruuxa in la yidhaahdo war hanaa u geysay shaydaan baa ku duubsaday gabadha iyo ninka isku duubsaday war bal nin u tegaya oo weliba ku faanaya ummadda hortoodii oo le anaa qaba bal ka warrama billahi calaykum berrina naagnaa qabta ka eg dabeedna waxay noqonaysaa silsiladaa socota qaar baa laga yaabaa marka inay la soo boodaan dunida gaalada qaar baaba sharcigooda ku jirtaa kuwaa maxaa loo halaaga waaye inta inaga layna halaagayo ruuxa ilaahay islaamnimo iyo iimaan uu siiyo haddii islaamnimadii iyo nicmadii alla uu siiye uu ka kufriyo uu ka cadaab xun yahay ka gaalka asliga ah sida ninka ridoobaya xukunkiisu dil u yahay isla marka la qabto gaalka isagoo gaal baa tahay halkaa isagoo iska taagan loo dili maayo sabab kale oo la yimaado mooyaane laakiin murtadka murtadnimaa loo dilaya waad ridowda keliya baa ugu filan dil man badala diinahu faqtuluuh buu nabigu yihi ninka diintiisa bedela dila kuwa garsoorayaashaana waxaan leeyahay haddaydaan qodob u haynin ilaahay baa idiin sheegay qodobkaad ku xukumaysaan man badala diinahu faqtuluuh murtadka diintiisa bedela dila ninka qowmuluudka faacilka sameeyey iyo ka lagu sameeyey labadabana waa la dilaya ma qaar qodob loo daydaya kuwan oo kale shareecada bayaan bay ku yihiin bayaan haddii kale garsooraha ka meermeeraya iyo wadaadka ka aamusan iyo ganacsadaha daawanaya intaa midna badbaadi maayo abadan waayo haddii ilaahay ciqaabkiisa uu keeno kii dulmiga sameeyey iyo kii aan samaynba wada camimaya wattaquu fitna laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa war iska ilaaliya fitno iyo dulmi aan ciqaabkiisu ku dhici doonin keliya kii sameeyey ba ilahi subxaana wa tacaala nabiguna wuxuu uhi calayh salaatu wasalaam wanaagga waa idin isfari xumahana waa idin iska reebi
ama ilaahay ciqaabkiisuu keeni doonaa markaasaa rabbi baryi doontaan markaasaa laydinka aqbali waayi doonaa maanta koronaa jira abaaraa jira maciishad barar baa jira dhib badan baa jirta miyi iyo magaalaba macsiyadana keentay haddaynu waxa aynu sheegaynay ka sii xun kabaa'irtan waaweyn kabaa'ir dhunuub iyo gaalnimo haddaynu ku darsano diintii ka baxayaan dhallinyaradeenni waxaynu sugnaa waa ciqaab walaalayaal ilaahay waa facaal limaa yuriid waxaynu maqli jirnay dowlad heblaaye waxay samaysatay gantaal qaaradaha ka gudba war ilaahay wuxuu soo diray bacterian cidiba arkayn oo 5 qaaradood dunida 6 qaaradood dunida isaga gudubtay oo nin inuu ku soo socdo iyo inuu hayo iyo inuu u soo jiro midnaba aan garanayn ku weyn iyo ku yar hadda waa tag of virus makhluuqaadka alle ku ugu daciifsanaa ayaynu iska celin karnaa waa ku ugu daciifsanaa ya haddii ilaahay ciqaabka waaweyn ugu salido balka war ya tarab baa loogu dhimanaya dunida tarab وعبرة مركز أيضا halkaynu ilaahay uga noqon lahayn inuu rabbi bari lahayn madax iyo shacab ilaahay u toobad keeni lahayn ayaynu diintii weydaananaynaa oo qoom luudnimo ficilkoodii la imanaynaa oo zinadu xarkaha goosatay oo kufsigu xarkaha goostay oo ridada iyo diinka bixi uu yahay sheega maalin walba la keenay maxkamadaha ee dadka hortooda la keenay ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka yaabno walaalaha maxkamadaha fadhiya ee qudaada garsoorayaasha ana waxaan ilaahay daraadi u faraya ilaahay daraadi inay ilaahay diintiisa u hiiliyaan si iyaguna u nabad galaan dadkoodana u badbaadiyaan dalkoodana u badbaadiyaan iyaguna ilaahay agtiisa ay ugu badbaadaan oo shariicada islaamka ay ku xukumaan oo ay cuskadaan ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa ta'aala rafca laga qaadan kari maayo kitaabka ilaahay lawyer loo qabsan kari maayo kitaabka alle muran la gelin kari maayo ka ku xukumaan nabad galaya ka lagu xukumina uu nabad galaya ودين متكامل ما ينقى أباهم بقضبو يين عين كلا يرى كون بارلمان قفردينا وحلاي وحيالها كلامه وتقيل دين اللي قفردي ويمر كلا يدنهار كانه ورقم اللوط لماذا يزينادا حكم كصاصار يقال لماذا حركها قوستي يدل كيني يدد كيني بالرقيس كصاصار وإلهي وحيدون كنا حريستو سبحانه وتعالى كصاصار ودد كينو آيان ودل كينو آيو ودين كينو آيدو وإلى اكتساد كنا بدقشان سبحانه وتعالى اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم إن بالبلاد والعباد من الدنك والجوع والعدش ما لا نشكو إلا إليك اللهم إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ودمار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق رئيسنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له بطانة صالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله محكما بشريعتك يا ذا الجلال والإكرام واجعله لأوليائك نصيرا وعلى أعدائك سيفا شهيرا يا رب العالمين اللهم أقم شريعتك على عبادك في أرضك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أقم شريعتك على عبادك وفي أرضك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عنا الوباء 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 والزلازل والمحن والغلاء يا ذا الجلال والإكرام عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا برحمتك نستغيث اللهم إنا برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ضعفاء فقونا
اللهم إنا ضعفاء فقونا وفقراء فاغننا وكسراء فاجبرنا يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم ارفع عنا الكورونا، اللهم ارفع عنا الكورونا وعن بلاد المسلمين جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.